munaasibadan oo ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatuma Kayse Cabdi Yuusuf iyo wasiirkan cusub ee la wareegay xilka ayaa waxay ka dhacday tulada Balcad oo hoos timaada magaalada Buuhoodle. munaasabadan xil wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatuma Maxamuud Sheekh Cumar, wasiirro xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntiina waxaa munaasabada ka hadlay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Kayse Cabdi Yuusuf. anigu aan Kayse Cabdi Yuusuf wasiirkii hore arrimaha gudaha Khaatumo aan jecelahay in aan xilkii ku wareejiyo wasiirka cusub ee hadda loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha mudane Axmed Maxamuud Doolaal iyada oo ilaa saakaba xil wareejinta aan ku jirnay. waxa xafladan hadda saxaafadu ay nagala soo qayb gashay iyo ummadda reer Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo gudaynta nagala soo ay ka marxaati kici doonaan inaan walaalkay xilkii si toos ah ugu wareejiyay. waa kugu soo dhaweynaya wasaaradda arrimaha gudaha Khaatumo State of Somalia. waxaa isaguna halka ka hadlay wasiirkan cusub ee la wareegay xilka Axmed Maxamuud Doolaal oo sheegay in uu ku faraxsan yahay xilkan uu la wareegay. waa nin xil qaaday eed qaad baa وكان قدومي وحي وسارة arrimaha guduhu lahayd waxaan kaloo ku faraxsanahay inaad wali golaha wasiirada ka tirsan tahay wixii su'aal igu ka harsan aan waqti u helay inaan ku weydiiyo wasaaradda arrimaha guduhu leedahay insha Allah waa wada shaqeynaa Khaatumana waxa u yaala hawl aad u ballaaran hadaynu golaha wasiirada nahay hadaynu nahay dadweynaheeda hadaynu nahay taageerayaasheeda hawl weyn baa inoo taala. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatuma Maxamuud Sheekh Cumar, wasiirkii hore arrimaha gudaha Kayse Cabdi Yuusuf wahaatana wasiirka amniga uu ku wareejinayo wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Axmed Maxamuud Doolaal. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanuna leenahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin fududeeyo xilalka cusub ee ballaaran ee umadiinu idin dhiibatay idinkuna aamintay sida idinku aamintay ina idin amni galisaan kuna shaqeysaan dadaalka iyo horumarka iyo kayool gaadhista ujeedooyinka ama yuusan haynin xilka qofka loo dhiibaa waa wasaaradda yaro gaar ah laakiin waxa ka xil weyn ka shacabka ee halka maraya nooc kasta oo hay-adeed mas'uulka uga ah inuu ilaaliyo hadduu amni yahay hadduu arrimaha bulsho yahay hadduu arrimaha gudood yahay inay kala shaqeeyaan isla garab taagaan. Maxamed Cali Bile, telefishinka qaranka Soomaaliya, degmada Balcad.